halkani waxaa fadda islii ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya dibadbaxyo ballaaran ayaa saaka ka socdo boqolaal qof ayaa iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee xaafadda islii dadka iskugu soo baxay wadooyinka ayaa ka xun aadna uga caraysan dhacdadii argagaxa lahayd ee habeenna ka hor ka dhacday xaafadda islii ee magaalada Nairobi saddex dumar oo isku qoysa ayaa la afduubtay kadibna waxaa loo geystay dil kufsi iyo waliba xubnahooda in la jarjaro waa dhacdo argagax badan shacabka ku nool xaafadda islii ee Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ayaana si weyn uga xumaatay dhacdadaasi laamaha amnigu waxa ay ku guda jiraan baaritaano walow wali aan aysa jirin cid loo soo qabtay dibadbaxan hadda maanta la iskugu imaaday waxaa ka qayb qaadanaya maamulka Kamakuji oo uu horkacayo xildhibaanka laga soo doortay Kamakuji ee Soomaaliyeed Yuusuf Xasan oo isagu iclaamiyay in la iskugu soo baxo wadooyinka si markaasi loo muujiyo dareenka in laga xun yahay dhacdadaasi argagaxa badan ee ku dhacday shacabka Islii suuqyada waaweyn ee xaafadda Islii gabi ahaanba maanta way xiran yihiin shacabka waxaa ka muuqdo cara aad u ballaaran iyo sidoo kale inay ka xun yihiin dhacdadaasi argagaxa badan wali ma aysan soo gaarin waqti xaadirkan oo la hadlayo maamulka ugu sareeya Kamakuji ee Yuusuf Xasan uu horkacayo iyo sidoo kale culimo u diinka balse boqolaal qof ayaa sii sugaya oo wadooyinka soo buuxdaafiyay dawlayaal dibadbaxyada socdo hadallada ay jeediyaan mas'uuliyiinta culimo u diinka iyo sidoo kale waxgaradka ka soo qayb galo dibadbaxyadan ka socdo xaafadda Islii iyo wixii ka soo kordho kiiska marxuumiintan la laayay muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii Alla idmo la socod wanaagsan كمان انت الناس كاهن هلبها انت الناس كاهن هلبها ماشي الناس كسرنا هذه هنا تحت هذه تحت بعيد بعيد تحت برا على برانك
أرياش تسعر يعني غير التقنية هاي صدق هاي صدق هاي صدق هاي صدق أرياش تبين الصدق